markale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaadhay oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdullaahi Xasan ayaa lagu wareejiyay dhulbeereed kamida dhulbeereedka galbeedka Goday isagoo ku biiray iskaashatada kulmiye ee mas'uuliyiintii hore ee deegaanka farax baday ayaa baabaynta warkaasi noo eegaya si kor loogu qaado wax soo saarka khayraadka dhulka ayaa waxay xukuumaddu sameysay iskaashatooyin soo saara dalag fara badan bulshaduna ay tusaale ku dayasho mudan ka hesho iskaashatada kulmiye waa iskaashato beeraley ay ku midoobeen madaxweynayaashii hore ee deegaanka ka soo arrimin jiray oo beera ku leh dhulbeereedka galbeedka Goday waxaana maanta ku biiray oo dhulbeereed lagu wareejiyay mudane Cabdullaahi Xasan oo ah madaxweynihii sagaalada deegaanka ka soo arrimiya waxaana ku wareejiyay dhulbeereedka gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Farxaan Cabdi Maajuun iyadoo uga gudoomiyay mudane Khadar Macalin oo soo wakiishay mudane Cabdullaahi Xasan waxayna u dhacday wareejinta beertu sida tan maanta waxaan rabaa inaan dhulka siino uu beeran lahaa madaxweynihii hore ee deegaanka mudane Cabdullaahi Xasan oo dalka dibadiisa ku maqnaa oo dhawaan yimid isla markaana aan siinayno 20 hektar oo diris la madaxweynayaashii hore ee dawladda deegaanka marka dhulkan oo maxaan ku dhahay oo ka beeri doona sisintii iyo bariiskii iyo carafka xoolaha iyo dhammaan qudaartii wixii loo baahnaaba oo maanta maxaan ku dhahay uu gudoomayo mudane Khadar Macalin oo silifsa kamida madaxweynayaashii hore ee deegaanka Cabdullaahi Xasan oo waddanka dibadiisa ku maqnaa beertu waan u gudoonay beertanadii kalena waata way ku dhagan tahay xilli kanaalka lixaad baan u gudoonay shaqadiina waa la bilaabayaa sidii hadda hore anaga naloo caawiyeen waa sidaan loo caawinayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay waxaa sidoo kale wareejinta dhulbeereedkan lagu wareejiyay mudane Cabdullaahi Xasan madaxweynihii hore ee deegaanka goobjoog ka ahaa ugaas maxamed qani maareeyaha mashruuca waraabka galbeedka Goday iyo Cali Cabdi Ciise oo isna kamid ah iskaashatada kulmiye farax bade telefishinka caalamiga ah ee ESTV mashruuca waraabka galbeedka Goday waxaa la soo afmeeray tartankii kadiska waxbarashada ee dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata iyo faafaynta warkan mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo kobcinta awoodda ee maamulka magaalada Jigjiga oo ka duulay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen tayada waxbarashada ee dugsiyada kala duwan ee ka jira maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxay u qabteen tartanka kadiska ee dhinaca waxbarashada kaasoo ah mid sanadkiiba hal mar la qabto iyadoo dulucda tartanka kadiska ay tahay sidii markaasi kor loogu sii qaadi lahaa tayada waxbarashada ee dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga iyadoo markaasi ay kala faa'iideysanayaan dugsiyadani waxyaabaha ay ku kala wanaagsan yihiin haddaba mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada ee maamulka magaalada Jigjiga oo iyagu hal bil ah u waday dugsiyadani tartanka kadiska ayaa waxa ay u soo xidheen tartankii kadiska ee socday muddadaasi bisha ahayd waxaana wareegii koobaad ee tartanka kadiska ahaa ka soo qayb galay 29 dugsi oo isugu jira dugsiyada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ka jira maamulka magaalada Jigjiga waxaana wareegii labaad u soo gudbay 15 dugsi halka wareegii saddexaadna ay u soo gudbeen 5 dugsi iyadoo waxyaabaha dugsiyadan ay ku tartamayeen ay kamid ahaayeen ee dhinaca su'aalaha 6 maado oo kala ah saddexda sayniska ah xisaabta afka hooyo iyo waliba milgaha qaranka iyadoo markaasi si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tartankan kadiska ahaa ee dhinaca waxbarashada dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga halkaan ay ku gudoonsiiyeen mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada ee maamulka magaalada Jigjiga dugsiyada iyagu markaasi kaalmaha hore galay oo ay kamid ahaayeen dugsiga sare ee maamulka magaalada Jigjiga dugsiga gaarka loo leeyahay Iqra dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Giire iyo waliba dugsiyo kale kadib markii tartankan la soo gabagabeeyay ayaa waxaan dhankiisa waraysi la yeelanay madaxa xafiiska waxbarashada iyo kobcinta awoodda ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdinaasir waxa uu nooga warbixiyay dulucda tartankan iyo waxyaabaha loo qabtay waxaan halkan ku soo gabagabeynay tartankii waxbarashada ee maamulka magaalada ee sanadlahay ka dhacay 29 dugsi faa'iidada weyn ee laga helayo waxay noqonaysaa in ay ardayda isbartaan isdhaxgal ay sameeyaan waa in tayada waxbarashada kor loogu soo qaado tayada waxbarashada markaan leenahay hadda waxaa soo dhow imtixaanaadkii ardayda si ay uga faa'iideystaan ardayda kaalmaha gashay koowaad labaad saddexaad kuwa kaalmaha galay abaalmarino kala duwanaan u gudoonsiinay tanna waxay aad u dhiirigelinaysaa ardayda kuwa guuleystana waxaan u rajaynaynaa inay guulahooda sii wadaan kuwa laga guuleystana waxaan u rajaynaynaa inay sanadka dambe dadaal adag ay sameeyaan geestooda waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dugsiyadan markaasi la gudoonsiiyay abaalmarinta isla markaana ku guuleystay tartanka kadiska ee la qabtay tartankan waa wax harta ardayda aad iyo aad faa'iido ugu leh waayo su'aalaha badan waa wax ardayga u fiican maadaama nahay arday u diyaar garoobaysa imtixaan heer qaran national ah su'aalahan maanta la weydiiyay hadii berito ay nationalka ku jiraan su'aalahaas de waa wax anaga faa'iido noo ah markaas waxaan leeyahay tartankan waa mid aad iyo aad ardayda tayadooda kor ugu qaadaya
qayb libaaxna ka qaadan inay su'aalaha imtixaanka si fiican uga shaqeeyaan. haddaba tartanka kadiska ee waxbarashada ayaa waxa uu yahay mid markaasi sanad walba ay soo diyaariyaan mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo kobcinta awoodda ee maamulka magaalada Jigjiga. dulucda ka dambeysana ay tahay sidii kor loogu sii qaadi lahaa tayada waxbarashada ee dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga. maamulka degmada Garbo ayaa kormeer xaqiijin iyo dhiirigelin isugu jira ku sameeyay shacabka ku hawlan tabcashada beeraha ee degmadaasi. Cabdiqaadir Kadeer iyo faafaynta warkan. si looga guulaysto saboolnimada ayaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya qorshe u qabatay in la tabcado dalagga beeraha maadaama la galay xilligii roobabka guga. haddaba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Garbo ee gobolka Nogob ayaa kormeer indhaindhayna ku tagay duleedka beeraleyda magaaladaasi Garbo xilli ay ka faa'iideysanayeen shacabka ku dhaqan duleedka degmadaasi Garbo roobabka guga. haddaba gudoomiyaha degmada Garbo mudane Faarax Macallin iyo weliba madaxa xafiiska beeraha iyo khayraadka dabiiciga ee degmadaasi Garbo mudane Khadar Axmed Macallin ayaa tilmaamay inay hirgelinayaan qorshaha ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ay qaadatay ee in lagu foorarsado dhulka maray mas'uuliyiinta TV-ga caalamiga ee STV ay ugu waramayeen waxa hadaladooda ka mid ahaa sida tan. maanta maartay waxaan soo booqanay beeraha maadaama maartay xilli roobeedkii beeraha la joogo sida maartay bulshada aan ugu wacyigelin amaan moraal u siino beerashada beeraha maadaama maartay xilli xun ee xilli abaareeda la soo maray si maartay roobka la helaa beeraha maartay loogu faa'iideysto maadaama degmada Garbo inta badan ay u badan tahay dhulka loogu faa'iideystaa xilli roobeedka ay u badan tahay ayaan bulshada maartay aan u wacyigelin ama dhiirigelin ugu sameeyno ayaan maartay waxaan bixinoo siinay abuur tayo leh abuurkaas oo maartay aad tayo u leh oo maartay muddo dhowna maartay iyo ku baxa ayaan maartay u qaybinay marka taa iidan maartay aan dawgal ku nahnay abuurka aan qaybinay in la beeray inaan la beerin si aan u kala xaqiijino waxaanu qorshaha koowaad ka dhignay sidii tabac looga saar lahaa dhulkeena taas oo ma taqaanaay aanu maantana bulshadii wacyigelinta ballaaran aan u samaynay aad aragtaan midhihii ka soo go'ay taasoo bulshadu ay dhammaan ku dhaqaaqday dhulkoodii isla markaana ay rabaan inay tabac ka soo saartaan annaga maadaama aan ahay anu baalabeedka xafiiska beeraha waxaan mar walba la garab taaganahay dhammaan beerafalatada degmada Garbo inaan ka caawiyo wax kasta oo ay baahdaan hadday tahay dhanka xirfadle beero oo ma taqaanaayay ka caawiya dhanka xirfadaha beeraha hadday tahay dhinacii siirka oo aan ka caawinayno oo aan siinayno hadday tahay xirfad kasta oo ay nooga baahdaan waxaanu diyaar ugu nahay had iyo habeenba goor kasta oo ay noo baahdaan in aanu heegan u nahay. shacabka ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay ka faa'iideysanayaan roobabka guga ee ka curtay deegaanka iyagoo og xaaladihii kala duwanaa ee ka soo martay abaartii ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka. maraan wax ka weydiinay dareenkooda farxadood iyo siday uga faa'iideysanayaan wax soo saarka dalagga beerahana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa bulshada goobtaasi ku dhaqan sida tan. maadaama ay noo bilowdeen xilliyadii roobasha ee gubadii jiray inaan beerta si fiican u dalgano ayaan ku taltal jiraa dawladdanada iyo madaxdanadii iyo gudoomiyahanaga wanaagsan way nagu garab taagan yihiin annaguna ugu mahadcelinaynaa. qorshayaasha ay qaadatay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya sanooyinkii u dambeeyayba ayaa in xoogga la saaro wax soo saarka beeraha maadaama uu deegaankeena Soomaalida iyo Itoobiya hodan uu ku yahay wax soo saarka iyo khayraadka kala duwan. warkan idinka hayno dalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa dadka sida sharci darrada ugu sugan dalka Sacuudiga ugu baaqay inay ka faa'iideystaan waqtiga la siiyay oo ay si nabad ah ugu soo laabtaan dhulkooda hooyo. Ibraahim Cabdi Muuse iyo faafaynta warkan. muwaadiniinta Itoobiyaanka ee sida sharci darrada ugu nool dalka Sacuudi Carabiya oo loo qabtay waqti ku filan ayaa sidii loogu talagalay aan uga faa'iideysanin waqtigii la siiyay waxaana mar iyo lababa loogu baaqay inay waqtigooda ka faa'iideystaan oo ay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan inta uuna waqtigu ka dhamaanin maadaama uu dalka Sacuudi Carabiya raafi doono cid kasta oo aan haysan ogolaanshaha dalka marka waqtigii la siiyay uu ka dhamaadana ay la kulmi doonaan dhibaatooyin fara badan. haddaba ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn oo ka hadlay arrintaasi
ayaa muwaadiniinta Itoobiyaanka ah sida sharci darrada ugu nool dalkaasi Sacuudi Carabiya ugu baaqa inay fursadda la siiyay ka faa'iideystaan maadaama ay dawladdu kharash badan iyo waqti badan ku bixinayso dib u soo celinta dadka oo aad looga taxadiray in aynan waxyeello soo gaadhin dadka dib u soo noqonaya isla markaana loo soo dhaweynayo cid kasta oo dalka hooyo dib ugu soo noqonaysa waxa uuna ra'iisul wasaare Hayle Maryam ka digay dhibaatada ku soo fool leh dadka diidan inay si nabad ah dalkoodii ugu soo noqdaan maadaama uu waqtigii la siiyay dhammaad ku dhow yahay አሁንም ዜጎቻችን ጊዜው አልፎ ከዛ በኋላ የሳዑዲ መንግስት በግዳጅ እየለቀመ ወደ አገር ቤት እንዲመለስ የሚያደርጉበት ሁኔታ እየፈጠሩ ነው ያሉት inta una waqtigu ka dhamaanin muwaadiniinta dalkeena ee aynan dawladda Sacuudiguna qasab ugu soo celinin waxa muhiim ah inay dadku dib ugu soo noqdaan dalkoodii hooyo isla markaana ka faa'iideystaan fursadda la siiyay ee dib loogu celinayo iyagoo oon dhib mudan rafaadna aan arag oo hiil iyo hooba lala garab taagan yahay maadaama uu waqtigii loo qabtay uu dhammaad ku dhow yahay oo ay hadhowna ka murugoon doonaan soo naqasho la'aantooda raafkuna uu yahay mid aan seegaynin oo ay la kulmi doonaan sidoo kalena waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Hayle Maryam Dhasaalin inay jiraan dilaalin si sharci darro ah ku shaqaysta oo propaganda fadinaya isla markaana ku dadaalaya inaynan dadku si nabad ah dalkoodii hooyo ugu soo noqonin sidaa darteedna loo baahan yahay in wada jir looga hortago si una warxumo tashiilku u lugoynin dadka ka faa'iideysanaya fursaddii la siiyay ee diyaarka u ah inay si